Assalaamu calaykum daawade. Halkan waa xogta qarsoon. Muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa guusha Soomaalida ee qaaradda Yurub. Maryama Cabdi Xuseen maxaa ku qasbay gabadhan inay kaalin weyn ku yeelato siyaasadda Norway? Halkee ayay ka soo bilowday siyaasadeeda? Muuqaalkani ayaan ku soo koobi doonaa daawade. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo channelka ku soo gaaro, waxaan ka codsanayaa in muuqaalkani like garayso, sidoo kalena share garayso asxaabtaadana aad la wadaagto, adigana aad saaxiib bartan igula noqoto. Hagaag gabadh Soomaali ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay Afrikaan ee loo doorto xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Norway. Haweeneydan oo lagu magacaabo Maryam Cabdi Xuseen ayaa sheegtay inay siyaasadda u gasho duruufo haysta bulshada ay ka dhalatay guud ahaan shacabka dalkaas oo ay rumaysan tahay inay wax ka qaban karto. Hadda ay ku guuleysatay inay ka mid noqoto baarlamaanka oo ah madasha lagu gorfeeyo siyaasadda dalkaas. balse Maryam waxay ku tilmaamtay in dadka soo doortay aysan ahayn Soomaali oo kaliya, waxaana intaas ay ku dartay in xisbiga ay ka tirsan tahay ee dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaas ay aad u taageereen. Sidoo kale waxay sheegtay in dadka soo galootiga ee dalka Norway kala kulmaan dhibaatooyin isugu jira cunsuriyad, sinaan la'aan iyo arrimaha sharciga, kuwaas oo sida ay sheegtay ka mid ah waxyaabaha ku riixayn siyaasadda ay soo gasho. Xisbiga hanti-wadaagga oo ay ka tirsan tahay Maryamo ayaa ka mid ah waxa uu ka shaqeeyaa inta badan arrimaha sinaanta iyo bay'ada. Run ahaantii waxay ugu dhaliyay baahi aan arkay in bulshadeena ay u qabto sinaanta iyo in waddankan aan ku nool nahay aan ka muuqanno, ayay tiri Maryam Cabdi Xuseen oo warbaahinta u warantay. Mar wax laga weydiiyey xildhibaanad Maryama maadaama ay tahay haweeney muslimad oo xijaaban in mararka qaar ay la kulmi karto caqabado iyo waxay ka filanaysa, waxay ku jawaabtay inaysan hadda jirin wax sharciyan hor istaagi kara xijaabkeeda iyo diinteeda, maadaama sida ay tilmaamtay in dalkaas Norway cid waliba lagu qiimeeyo waxyaabaha sida gaarka u leeyahay. Dad badan oo Soomaali oo isugu jira siyaasiyiin iyo aqoon-yahano oo dalka waxay baraha bulshada aad ugu hambalyeeyeen gabadhan. Waxaa ka mid ah siyaasiyiintaas u hambalyada u diray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo muddo badan ku noolaa dalka Norway oo hadda Maryam ay ka noqotay baarlamaankiisa. Qoraalka ka soo baxay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa ammaani bogaadin loogu diray Maryam Cabdi Xuseen. Waxaan hambalyo u dirayaa Maryam Cabdi Xuseen oo noqotay xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaalida ee ka mid noqotay baarlamaanka dalka Norway. Maryam waxay dhigtay taariikh muhiim ah maadaama ay noqotay gabadhii ugu horeysay ee muslim ah iyadoo xijaab ku xiran ku dhex muuqan doonto golaha sharci dejinta dalka Norway. Maryam Cabdi Xuseen inta aysan siyaasadda gelin waxay ahayd gudoomiyaha ururada ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda dalkaas Norway, waa jaamacadaha dalka Norway, Somali Student Foreign SSF, oo ra'iisul wasaarihii hore ee dalku ka mid ahaa dadkii aasaasay 1993. qoraalka waxaa ra'iisul wasaarihii hore uu soo qoray lagu daray anigoo ka soo noqday gudoomiye ururkaas 28 sano ee la soo dhaafay noqday warshad soo saarta dadka tayada leh ee ka dhex muuqda jaaliyadda Soomaalida Norway iyo caalamka intiisa kale. Xildhibaanka cusub ee dhammaan Soomaalida ku nool Norway waxaan u dirayaa hambalyo ku aadan guusha taariikhiga ayuu ra'iisul wasaarihii hore qoraalkiisa ku qoray. Waxaa jirta guulo ay gaarayaan maalmihii u dambeeyay dadka Soomaaliyeed, taas oo ka dhigan mid ka mid ah waxyaabaha guud ahaan qaaradda Yurub ay u tageen shacabka Soomaaliyeed iyo waxay doonayaan inay kaga muuqdaan siyaasadda. Soomaali badan ayaa waxa ay ka dhex muuqdeen golaha sharci dejinta wadamo badan sida Finland iyo sidoo kale Mareykanka oo Ilhaan Cumar ay ku jirto. Waxaana xusid mudan in guud ahaan Soomaalida wadamada kala duwan ee qaaradaha kala duwan taga ay daneeyaan inay ka dhex muuqdaan siyaasadda, walow dadka Soomaaliyeed aysan aqoontoodu dalka aysan ku kobcin. Haddana marka ay tagaan wadamada Yurub iyo sidoo kale Ameerika waxay diiradda saaraan kordhinta aqoontooda, taas oo ku dhiirigelisay in mar kale ay ka dhex muuqdaan siyaasadda. Maryam Cabdi waxay ahayd gabar daayar, waxaana ay noqonaysaa haweeney iyadoo daayar ka dhex muuqan doonta baarlamaanka dalka Norway. Sidoo kale Itoobiya ayaa ka mid ah wadamada siyaasadooda Soomaalidu ay aad kaga muuqato, sidaas oo kale Kenya iyo sidoo kale wadamo kale oo dhaca qaaradaha Asia iyo sidoo kale Yurub ayaa Soomaalidu aad ay kaga dhex muuqdaan. Norway waa mid ka mid ah goobaha sida weyn ay Soomaalidu ugu nooshahay waddankan oo dhaca bartamaha qaaradda Yurub, kana mid ah wadamada la isu yiraahdo Scandinavian-ka. Waxaa markani ka soo muuqan doonta baarlamaankiisa gabar Soomaali ah. taas waxaa ku dheer daawade in Maryam Cabdi Xuseen ay tahay gabadhii ugu horeysay ee muslimad xijaaban ah oo ka mid noqota baarlamaanka dalka Norway. Tani sidoo kale waxay guul u noqon doontaa guud ahaan Islaamka maadaama gabar Soomaaliyeed oo xijaaban ay ka soo muuqanayso baarlamaanka dalka Norway.
Norway waxay Soomaaliya taageeraan dhinac kasta marka la fiiriyo arrimaha bini'aadanimada iyo sidoo kale qaxootiga oo ah awoodaha Norway ay siiso Soomaaliya balse marka taas laga tago Maryam hadda waxay sheegtay in caqabadaha dadku ay qabaan ay qayb ka tahay arrimaha soo galootiga iyo cunsuriyadda sinaan la'aanta kuwaas oo ay sheegtay inay ka caawinayso dadka Soomaaliyeed balse waxay dafirtay in Soomaaliya oo kale ay doorteen iyadoo sheegtay in xisbigeeda hanti wadaagu yahay xisbiga muhiimadda gaarka siiya gabadhan sidaa daraaddeedna ay u shaqayn doonto guud ahaan dadka doortay ee wadamada kala duwan ee caalamka ama sidoo kale Norway u dhashay ee xisbigeeda taageera gabadhan sidoo kale waxaa ku dheer waa gabadhii Afrikaan ee ugu horeysay ee ka mid noqotay baarlamaanka dalka Norway marka aad fiiriso Norway dunida waxa uu kaga jiraa kaalmaha sarsare wadamada aan lahayn musuqmaasuqa siyaasadooda iyo guud ahaan dawlad dhiskoodana uu yahay mid sareeyo sidaa daraaddeed taasi waxay caawinaysaa gabadhan Maryam Xuseen Cabdi waxaana markan ay doonaysaa in saameyn ay ku yeelato siyaasadda guud ahaan qaaradda Yurub Norway ayaa waxaa ku sugan Soomaali badan kuwaas oo qaarkood tahriib ku galay sanadii u dambeeyay halka kuwa kalena tan iyo burburkii dalka ay dalkaasi galeen Maryam Cabdi waxay noqon doontaa mid isku qorta baaldahab ah maadaama ay ka mid noqotay baarlamaanka dalka Norway sidoo kalena gabadhii Afrikaan muslimada ee xijaaban ee ugu horeysay ee baarlamaanka dalkaas ku soo muuqata hambal iyo daawada guusha Soomaalida darteed muuqaalkan u sheer garay nabadgelyo